dhammaanteen waxa aynu ku jirnaa hayaan iyo safar nolosheenna ah. Maalin kasta waa bog cusub, halgan cusub, fursad cusub oo aynu koritaanka ka helayno noloshaan. Waan weynaanaynaa, waan koraynaa oo kolba baahiyo iyo mas'uuliyado cusub ayaa inala soo kordhaya. Quruxda safarka noloshu waxa ay ku jirtaa in qof walba isbeddel iyo waayo-aragnimo cusub ka helo. Waxa aynu nahay dhalinyaro, waxaana inaga maqan talooyinka iyo tilmaamaha ruuxda kobciya, sida kalluunka ugu baahan yahay biyaha. Anigu ma hayo muuqaal aad daawatay oo ka qiimo badan kan maanta aad dhegaysan doonto. Waxaan rabaa inaan kugula wadaago 5 talo oo dahabka ka qaalisan, malabka ka macaan, maskaxdana fure u noqonaya, noloshaada berrinana dhidib u dhigi kara. Waa talooyin qof dhalinyaro ah oo nolosha dhab u bilaabaya uu u baahan yahay inuu qalbiga ku hayo. Ka hor intaynaan u gudbin muuqaalka like garee, share garee oo nala sii joog ilaa dhammaadka saaxiib. Waad weynaatay saaxiib. Waad weynaatay ee weynee hayntaada maskaxeed iyo maaliyadeed. Caadiya nolosha 2 tiir ayaa dhisaa. Tiirka maskaxda, aqoonta, garashada, fikrad samaynta. Tiirka maalka, hantida, qorshaha iyo maalgelinta. Maskaxda aan kobcin waa la hilmaamaa. Hantida aan qorshe lahaynna waa la lumiyaa. Aqoontu waa kheyraadka kaliya aan la xadi karin, aan guban karin, oo had iyo jeer qofka horumar gaadhsiisa. Waxaan kuu sheegayaa qofka maanta akhriya wuxuu berri u talinayaa kuwa maanta hurda. Aqoontaada ballaadhi, jeebkaagana cayili, maxaa yeelay noloshu waxay xaqiijisay labaduba inay yihiin lagama maarmaan. Dunida maanta waxaa lagu tartamaa hal shay oo keliya, fikir cusub oo soo saaraya dhaqaale cusub. Aqoontaada iyo jeebkaaga labadaba u dhif sidii 2 wiish oo mid walba midka kale kor u qaadayo. Waad weynaatay ee weynee dareenkaaga aadami. Dareenka dadka iyo naxariistu waa halka ay ka bilaabanto aadanimadu. Dunidu waa qallafsan tahay, laakiin qalbiga wanaagsan ayaa ka dhigaya meel lagu neefiso. Akhlaaqda wanaagsan waxa ay ka qiimo badan tahay hanti kasta. Waa lacag qof kasta uu qaadan karo, laakiin aan qof walba bixin karin. Saaxiib, qofka dadka xushmeeya waa qof iskiis u weyn. Nolosha waxaa kobciya 3 shay: naxariis, dadka ka dhig inaad tahay meel ay ku nastaan; cadaalad, qof walba kula dhaqan wixii xaq ah; dulqaad, ma jiro qof dulqaad leh oo guuldarraystay. Mandela wuxuu yidhi, xor ma aha qofka agtiisa lagu bahdilo ama lagu hoosaasiyo ee aana dareemin qof kale. Dadka ilaalinta, dulmiga diididda, iyo horumarka bulshada ka qayb noqoshadu waa taariikh qofna amar kugu siin karin, oo qofku isaga ayaa iskii u qoraya. Waad weynaatay ee qoyskaaga la weynow. Qofku qoyska ka doorto wuxuu doortay nabad, barako iyo joogtayn. Qoyskaaga waa meesha aad ka hesho 2 shay oo aan dunida kale laga helin: jacayl aan shuruud lahayn, ilaalin aan qiimo ku xirnayn. Waalidku waa khibrado aan fasal lagu baran. Walaaluhu waa garabka aad ku tiirsato marka adduunku kugu adkaado. Carruurtuna waa taariikhda beri sii waarta. Xilli qoysasku kala firdhayaan, adigu ku dadaal inaad adkayso dunta qoyska. Maxaa yeelay dhibaato kasta waa la maarayn karaa, laakiin dhaawaca qoysku waa mid aan la dareemi karo ilaa ruuxda. Ha noqon qof qoyska ka go'a. Nolosha kuma degtid haddii aad gurigaaga xasillooni ka jirin. Waad weynaatay ee raganimadaada weynee. Raganimadu ma aha cod weyn, muruqo ama muuqaal. Waa go'aan, mas'uuliyad iyo xushmad. Waa qaab fikir, waa qaab nololeed. Raganimadaada ku dhis inaad ka baxdo ciyaarta dhallinyaradaba aan mustaqbalka lahayn. Inaad ka fogaato shahwada iyo damaca burburin kara himiladaada. Inaad xulato gabar ku xoojinaysa iimaan iyo go'aan, ma aha mid kugu jiidaysa fawdo. Haweenku 2 qaybood, mid ku horumarisa iyo mid ku dhibta. Ka dooro mid ku dhiganta, diin leh, akhlaaq leh, ku qiimo yeeli karta. Quruxdana waa muuqaal, daacadnimaduna waa nolol. Nabigu wuxuu yidhi, haweenka waxaa lagu guursadaa 4 arrimood: qurux, hanti, sharaf iyo diin. Ka dooro diinta. Cajab, hal sadar ayaa ku jira guusha rag kasta, waana haweeney dhab ah. Waad weynaatay ee cibaadadaada weynee. Cibaadadu waa saldhigga guusha. Qofka Alle xiriir adag la leh, dunidu ma wiiqdo, naftuna ma qalluuciso. Dariiqa guushu wuxuu leeyahay 3 tiir: dadaal, duco iyo samir. Markaad sii waddo dadaalka, ducada aad badiso, sabirkana aad la socodsiiso, waxaad noqonaysaa qof aan la burburin karin. Diintu waxayna baraysaa markaad dhibaato gasha salaatul xaaja, markaad guul gaadhana salaatul shukri. Diinteennu macaan baa ina baraysa in guusha iyo guuldaradaba Alle loo noqdo. Salaadaha ilaali, soonka xooji, qur-aankana ha dayicin. Dikriga samee, jannadu waa ballaaran tahay, dhammaanteedna wayna wada qaadi kartaaye. Gunaanadkii iyo gabagabadii muuqaalkana 5 talo ayaan jeclaystay inaan kula wadaago saaxiib, si aad u kobciso maskaxdaada, qalbigaaga, qoyskaaga, raganimadaada iyo cibaadadaada. Muuqaalka like noo saar, la wadaag saaxiibada. Ha noqon qof talo bixin kara ee noqon qof talo qaadan kara. Waxaan idiin rajaynayaa nabad, degenaansho, horumar waara. Tan iyo inta aynu ku kulmayno muuqaalka kan xiga, nabadiino saaxiibayaal. Sidaas iyo nabadgelyo.